halkan iga dambaysa waa North Korea wadanka ugu khatarta iyo ilaalada badan leh adduunka oo dhan dhammaan xadka North Korea waxa ku taxan taawarada ay saaran yihiin askarta ilaalisa xadka sidoo kalena si joogta waxa meeshaas u ilaaliya ciidamada militariga oo tirabeela taasoo meesha ka saaraysa suurtagalnimada inaad isku qariso xadkan balse waarna sida aad ciwaanka muuqaalka ka soo aragtay caawa waxaan seexan doonaa isku qarin doonaa xadka North Korea I think this is an actual military bunker. Kim Jong-un saaxiib waan ku soo socdaa maanta safarkeena hadaba saaxiib yaal wuxuu ka bilaabmayaa South Korea 안녕하세요 YouTube. waan waa in intaasi la micno tahay iska warama YouTube oo Koreana saaxiib yaal intaan caawa seexan weli waxaan idin sheegnayaa jira bari waxaan u socdaa xadka North Korea gaar ahaan qaybta loo yaqaano Demilitarized Zone ama DMZ meeshan waxa ku taala xadka North Korea iyo South Korea u dhaxeeya waana meesha ugu militariga badan leh adduunka oo dhan waana meesha ugu dhoweed ka gaari karto North Korea sida aynu si qiyaasanayna saaxiibayaal xeerarkooda aad ay ugu adag yihiin qof kastaana meeshan iska midigi karo anigu si aan meeshan u tago waxaan dalbaday safar private oo aan wiiga ka hor sii dalbaday si aan kaliya meeshan u tago waxyaabaha ay qorshaysan berito markaan meesha tagayna sameeyana waxa ugu horeeya inaan waxyaabaha aan jirin ka faafiyo North Korea waxaan rabaa inaan ku soo baashaalo ninkan lagu magacaabo Kim Jong-un waliba intaan u dhawaan karo aan u dhawaado meesha uu joogo iyo talabaad oo inaan meesha tago oo soo raadiyo meeshaan caawa seexan doono iyo ta ugu dambaysay saddexaad oo ah ta ugu adag inaan meesha lagu qaban mar rumaysan karo in arrintan aan sameeyo saaxiibayaal maalmihii ugu dambeeyay aad baan meeshan uga naxnaxsanaa oo nagu sii cabsanayay caawa waxay noqon doontaa habeenka ugu dambeeyay aan sariir caadi ku seexdo waxaan isku day doonaa in hurdo fiican qaato berito horena waxaan seexan doonaa xadka North Korea haddii aad la yaaban tahay sababta ay weli dibadda u madowdahay way waa 5 subaxnimo aynu diyaar garownay maka saaxiibayaal markiiba waxaan dalbaday Uber si uu ii geeyo meesha uu ka dhaqaaqay safarkaan ku baxayno halkaas oo aad boosteejada treenka Oh, hello. Yes. Jack Pembroke? Yes, yes. Jack Pembroke. Jack Pembroke. Oh my God. ninkan aan weli hore u arag ayaa ii soo kaxeeyay isagoo ii soo orodsiiyay dhanka gaadhigan ay dadku saaran yihiin aan weli hore u arag waxaan uu sheegay haddii aanu degdeg weyno inaanu militariga noo ogolaanin inaan meesha tagno sidaa awgeed waanu degdegnay Okay. markan saaxiibayaal baskan ayayna saareen dadku ka buuxaan halkan oo ay nagaga sii horeysay gabadhan hagi doonta safarkan ee Kelly lagu magacaabo We can stay at DMZ for 3 hours. iyadoona halkan noogu sheegtay inaynu 3 jeer istaagi doono goobtan DMZ waxoogii markaan xadka soo soconay saaxiibayaal waxaanu dareennay inaanu soo gudagalnayba xadkii halista ahaa waayo dhammaanba waddada hareeraheeda waxaanu ka arkaynay taawrada askartu saarnaayeen markasta waan arkay ciidamadan Koreana aad baan u sii warwarayay oo calooshaabay sii xanuunisay markii ugu horeysay hadda baanu soo gaadhnay meesha laga galo gabadhina hagaysa ayaa noo sheegtay waxa la samaynayo gabadhani markay noo sheegtay in askartuna baari doonaan waxaan ka sii warwarayba waxyaabaha shantada iigu jira maadaama ay sida boostaradan soo diyaarsaday ee waxyaabaha aan runtahay inaan ku faafinayay We're almost here. Military checkpoint from now on. All the photo, all the video, not allowed. I snuck a video. ugu dambayn sidaas ayaan ku galnay meeshaan u soconay oo checkpoint-ka ugu horreeyay militariga aan ku dhaafnay haddaba waxoogay oo kale markaanu sii soconay waxaan waddada dhinaceeda ku sii aragnay xadkii hore ee laga guuray ee u dhexeeyay South Korea iyo North Korea ugu dambayn halkan ayaynu joognaa goobtii ugu horreysay aynu ku istaagnay meeshan ugu horreysay markaanu istaagnay markiiba waxaa lanoo kaxeeyey dhanka tiyaatarka si aan muuqaalkan u daawanno Although North and South Korea established their own governments after World War II, the peace didn't last long. muuqaalka markaan daawaday markiiba waxaan dareemay yara cabsi waxaana bilaabay inaan hareeraha yara eego si aan u eego waxyaabaha igu hareeraysan waayo waxaan rabay inaan la soo baxo boostaradii aan soo samaystay taasoo ah sababta in meeshaba u nimid balse gabadhan Kelly lagu magacaabayay markaste agagaarka ayay ka dhaweyd oo waxba ilaalinaysay mar walbana dadkay tirinaysay ma garanay saaxiibayaal si aan ku sameeyo wixii aan doonayay intaa kadib waxaa lanoo kaxeeyey si lanoo soo tuso tanal dhulka hoostiisa ku yaala tanalkani waxa waa tanal aad u qadiimiya kaasoo asal ahaantiisa ay dhistay South Korea si ay weerar ugu qaadaan North Korea haddaba saaxiibayaal dhammaanba dadku iyagoo laynka sii wadagelaya anigu halkan waxaan ka arkay jaaniskaygii dadkaan la socdayna sidaasaan kaga soo dhuntay I took my chance.
saaxiib yaal waan ka soo cararay iminka kooxdan la socday halkan baan isku qarinayaa ma garanayo meel aan iminka joogaba marka saaxiib yaal dadkii dib ayay soo noqonayaanba aniguna waxaan raadinayaa meel aan ku dhajiyo posterkii ugu horreeyey Gotta look for a good spot. halkan wayna anfacaysaa saaxiib yaal halkan baynu ku dhajin doonaa tiirkan baynu ku dhajin doonaa meel fiican bay noqonaysaa anigoo la soo baxaya haddaba posterkaygii ninka shaqaalaha ayaan xaggayga dambe ku arkay aniga posterradii iska wadato ninkii ayaa isoo istaagay 켈리 그룹. waxaan u malaynayaa in ninkani markani ogaaday sidaa darteed waa inaan degdego hawshayda qabsado Come on. posterkeen ugu horreeyay aan halkan ku dhajinay I mean, if this isn't the most embarrassing thing to be known for, I don't know what is. That's right, Kim. You can't stop me. I gotta get out of here. kan waa kii ugu horreeyey 5 booster aan haysto weliba 4 booster ee kale way kasii qosol badnaan doonaan kan imika aynu ku dhijinay meesha saaxiib yaal sidaa halkan aynu ka arkayno dhammaanba meeshan DMZ-gu waa meel la wada xidhay macquulna maaha in qofku iska soo galo sida halkan aynu ka arkaynana checkpointii military ay wada joogaan ayuunbaa meeshan ku yaala Oh no. I just check one thing. Check it? I mean, if you just delete it, please. Yeah, I can delete it. I can just delete in the recent delete as well. Yeah. saaxiib yaal sidaad aragtaan nin military ayaa ii yimid waxaanu iga dalbadayba fideogan duubay inaan dhilid gareeyo aniguna meesha waxaan ka raadinayaba meel aan seexdo ninku waa ninkaas sii socdaa isagoo sii socdaan kilibkan ka duubay saaxiib yaal intaa kadib markaynu baska dib ugu soo noqonnay ayaanu soo soconnay meeshii labaad ayaanu soo istaagnay saaxiib yaal waxaan aaminsanayn in halkan ay tahay halka ugu dhow ee aad North Korea uga dhawaan karto sida aynu halkan uga jeedno saaxiibayaal North Korea markaan caadi ayaad u arki kartaa waana halkaan ku fikiray inaan ka raadsado meel aan caawa seexdo inkastoo la sheegay in muuqaaladu ay dhammaanba mamnuuc yihiinna inta yar ayaan duubay halkan imika aad arkaysaan waa North Korea balse haddii aan runta idiin sheega saaxiibayaal magaaladan magaalo saxa ma aha cidi kuma noola meeshan gebi ahaanna waa tuulo Eurofeyga dabcan markaad halkan ku sugantay waxaad dareemaysaa inaad North Korea joogto waddanka khatarta ah sidoo kale dahsoon ee adduunka oo dhan markan saaxiibayaal waxaan mar kale go'aansaday inaan kii labaad posterkii labaad ku dhajiyo meelahan gidaarkan ayaa noqon doona meesha ugu habboon aan ku dhajinayno halkan dad badan baa soo mara daqiiqad walba dad baa soo mara way akhrisan doonaan dad badanna way ku raaxaysan doonaan balse saaxiibayaal dibadda markii aan u soo baxay waxaan ogaaday in dhammaanba meel kasta oo ka mid a dhismahan kamaradaha security-ga ay ku dhegsan yihiin anigana la arkay waxaan sameynayay sidaa darteed waa inaan meesha iskaga cararo balse intaan halkan ka tegin xamaamka ayaan markan gelayaa oon ku dhijin doono booster kale This might just be my best work yet. xamaamkii waa iskaga soo baxay waqtiguna way ugu yaraa gabadhi keeli lagu magacaabayay ay soo wacaysay oo lahayd baskuu kaa tegayaa soo carar dadkii baskana waxaan ku khasbanaaday inaan qof kasta raali geliyo maadaama soo habsaamay meesha saddexaad aan istaagnay waxay ahayd xaafad yar oo ku dhex taalla meeshan DMZ-ga halkana dad badan ayaa si free ugu nool halkanna waa meelaha ay ku dhuuntaan haddii wax weerar uu ka yimaado dhanka North Korea waana haddii Kim Jong Un go'aansaday inuu kumanaan gantaal ku soo tuuro halkan qaybtan markaan ka soo degnay waxaan arkay dukaankan yar ee hadiyada laga iibsado halkaana waxaan ku arkay waxa waag lacagtii North Korea That's from North Korea. Yeah. Just hit a lick on Kim Jong Un. It's your money, bro. dhammaanba dadku waxay sii galayeen gudaha laakiin anigu wixii aan halkan u imid weli maan dhammaysan 2 booster oo kale ayaa hadhay waxaanan isku dayay inaan ka soo dhunto dadkii gurigan ayaynu markay soo gaadhnay baska halkaas isu yaalaa halkan booster baan ku dhajin doonaa halkana sidaan arkaya dhammaanba waxa ku hareeraysan meeshan DMZ-ga waa geedahaas iyo dhirtaas halkaana xadka ayaa mara waa halkii xadka hareeraheeda ahayd There we go, baby. Kim Jong Un spotted on a romantic date with influencer. gidaarka gurigeena waxaan ku dhajinay boosterkii afraad hal booster oo kaliya ayaa hadhay sidaas darteed oon faraxsanaa laakiin aanoo meesha kasii tegaya waxaa dhiloobaba in gurigan aan ku dhajiyey la deganaa sidaa darteed qofkii lahaa ayaa soo noqday markan isla markaan sidaa boosterka ugu dhajiyeyba Oh my gosh, he's gonna see it. Oh no, no, no. Oh my god, he's gonna see it right now. halkan waan ogaa in laygu qaban karo sidaa darteed waan ka degdegay meesha baski ayaana dib ugu noqonay sidaasaanan ku badbaaday oo waxyaabaan geystay layguma qaban marna layguma xidhin intii aan dhexda sii socono dhan haddaba waxaan ka fikirayey sidaan ku heli lahaa meel aan caawa seexdo oo xadka u dhow sida aan marka hore filayna way ka adkaatay imika in la helo meel la seexdo
maanta sidaas ayaan kusoo gabagabaynay wixii aan doonayna oo soo sameeyey oo propagandadii iyo posterada aan samaystay waan kusoo wada dhijiyay meelihii laakiin markaan waxaan u baahanay inaan helno meel aynu seexano sidaa darteed saaxiibayaal si aynu u helno wixii aan meesha nimidba markaan waxaan raadinayaa Google Mapska waxaan ka baarayaa meelo daciif oo aan ka geli karo ama ay ka fududahay oo meel aan seexdaan ka heli karo halkaas waliba xadka agtiisa ah oo aan ka arki karo North Korea Google Mapka saaxiibayaal waxaan raadinayay saacado meelo badanna Google Mapka wuu iga xiray oo maan arki karin street view-ga laakiin ugu dambeyn 2 saacadood kadib waxaan helay meel aan seexan karo halkaas sidaan ka aragno waa dariiq la maro oo miles aad socon karto kaasoo toos ku geeliya xadka North Korea halkan waxaan ka ogaaday inaan xadka u dhawaan karin ilaa halka dambe aad ka soo wareegto waxaana diiradda saar doonaa dhulkan cagaaran ee kaymaha dhirtaas haddii aan ka gudbo waxaan heli karaa meel sax ah oo seexan karo caawa halkaas waliba buurtan dusheeda meeshaas si fiican ayaynu uga daawan karnaa North Korea balse dhibaatada jirta waxa weeye in meeshan gebigeedaba uu military ilaalinayo iyo waliba kamarada CCTV-ga ay ku xidhan yihiin waxaan laga yaabaa haddii ay arkaan inay ga shakiyaan sidaa darteed ay xabad ugu dhuftaanba dhammaan meeshan waxaa ku wada hareeraysan oo ku yaala calaamadahan lagu sheegay inaanad agagaarkan ka soo dhawaan haddii aynu calaamadahan ku turjino Englishna waxaan arkaynaa inay ku qoran yihiin in qofka aragti lagu togto ama ay tahay sidaa darteed saaxiibayaal waxaan ku qasbanahay inaan marnaba la arag oo aan la qaban oo waliba aan doonto oo meeshaas soo seexdo anigoo isqarinaya okay saaxiibayaal iminkan ayna mariya For Jack? markan gaadhigan Uberka ayaan dalbaday si uu meeshaan rabay geeyo halkaasoo magaalada aad uga fog marba marka ka dambaysa markaan sii fogaano meeshiina u soo dhawaano warwarka ayaa igu badanaya cabsi ayaana dareemayay saacad kadib waxaan soo gaadhnay meel u dhow buurta ayaan rabnay waxaan kaga degay gaadhiga meeshan tuuladeer la moodo markan ma garanayo meel aan ku suganahay kani waa dareenkii ugu cabsida badnaa ee weligii dareemo waxaan ku dhex jiraa bartanka Korea waxaan ku qasbanahay inaan soo helno kaymahan ka soo baarnay Google Mapka dhulkani aad ayuu madow yahay sidoo kalena aad ayuu qabow yahay kaymaha laftarkooda meel ay ku yaalaan ma sheegi karo sidoo kalena waxaan aad ugu sii warwariyay inaan seexdo dhulka wada dhirta waliba markaan wax soo baarayna waxaan soo ogaaday in halkaas ay xayawaano badan laftarkooda ku nool yihiin sida harimacadka madax kutida madow iyo waliba xayawaano kale oo fara badan saaxiibayaal meeshan waan iskaga tagi doonaa intaayna cid inagu soo gaadhin ee waliba aanayna qaban hawsha markaan noo taalo inaynu kaymihi soo helno saaxiibayaal ayba ayna soo heriyo inagu saaciday kaymahan waa inaynu degdeg u helnaa iyadoo ay fara badan haddaba xaafada ay ka dhex buuxdo waxaan ku qasbanahay inaan markan helo meel aan ku doonto oon ayadana iskaga qariyo ama meeshii aan heleen raadinayay marka saaxiibayaal dhismahan la dhisay maran baan helay oo sidaan u malaynaya kaymihii inagu hagi doona shabagan markan waa inaan ka dhacaa kaymihiina way kasii dambeeyaan sidaan filayo I think I'm gonna have to hop this thing. I can't even see where I am right now. Now we have to climb into these woods. Oh my god, this is so sketchy. It's time to do this. When I get scared, I do this thing where I count down from 3 in my head, and on 3, I have to do it. So if you'll excuse me, I'm gonna count in my head. I gotta grab my stuff. This is so steep. Ow. Oh fuck. haddaba imika waa inaan kaymahan kusii dhex soconnaa cabsida leh agagaarkan baraf ayaa ka wada buuxa markan way soo dhawaanay xadkii baynu usii dhawaanaynaa imika laakiin saaxiibayaal in badan ayaan soo karay buurta imika buurtan marka hore waan dhayalsaday laakiin waa buur dhan oo dusha looga baxayo This tree just saved my life. Holy shit. haddaba buurta halka sare markaan uga baxay wax dhaqdhaqaaqa waan waayay ama sanqara waxaanan aad uga cabsanayay in meeshaan madax kuti ka maqlo codkeeda markastoon hore u sii socda waxaan dareemayay inaanay ahaynba in meeshan aan isku imaado oo aad ayaan usii cabsanayay There's an old barbed wire fence right here, and it looks like I could get through it. waxaan filayaa markan buurta halkeedii sare ayaan soo gaadhnay waxaani waa maxay talow waxay u egtahayba meel loogu talagalay in militarigu ku dhunto Okay. markan meel aan ka noqdaa may jirin in badan baan soo socday sidaa darteed waan ku qasbanay inaan hore u sii socdo balse waxbaan meel fog ka arkay waa maxay waxaasi talow
waxaan malaynayaa inay meeshani tahay meel militariga loogu talagalay inay ku dhuntaan aynu hore usii soconna bal hore ayaanu sii socday buurtana waan sii koray marba marka ka dambaysana waxaanu sii dhawaanayay xadka North Korea ugu dambaynna markii aan saacad iyo badh buurta soo korayay waan soo gaadhay xadkii wayna soo gaadhnay saaxiibayaal halka ugu sarreysa waaban gariirayaa saaxiibayaal si aragtaa gacantaydu waa kaa saaxiibayaal xadkii North Korea leedhkaan halka ka arkaynaana waa North Korea ma rumaysan kara saaxiibayaal tani wax la rumaysan kara maaha inaan halkan joogo ugu dambayn saaxiibayaal markan ma sheegi karaan arki kartaan laakiin halkaasi waa xadkii North Korea dhammaanba halkanna military ayaa wada degan iyagoo diyaar u ah inay toogtaan qofka halkan ay kaga shakiyaan aad bay mudoodahay saaxiibayaal ma arki karnaba meeshana waa sii ogaa inay midoobaan doonto sidaa darteed kamarada night visionka ayaan soo qaatay ee loogu talagalay in habeenkii wax lagu duubo ma garanay saaxiibayaal inaad arki kartaan iyo in kale laakiin halkan waa halkaan ku suganahay saaxiibayaal halkaa waxaan filayaa in meel military ay tahay waxaan rajaynayaa in aan iyo arkayn imika North Korea waa halka inooga muuqata dabcan way adag tahay in la arko way kamarada quality-geedu ma fiicna meeshuna aad bay u mudoodahay waxaan rajaynayaa berri markuu waagu baryo inaan si fiican u arki doono North Korea marka saaxiibayaal waxaan ku suganahay meeshaan caawa seexan doono balse ugu horreyn waa inaan cashadaan soo qaatay meesha ku cunaa waayo calool maran kuma seexan karo Bon appetit. Very dry. I should have brought water. And secondly, entertainment. Now, there's no service out here, but if you know me personally, you know there's one thing I'm absolutely obsessed with. Pokemon. This is a Korean pack of prismatic evolutions. We'll see if we can get that North Korean luck and pull a freaking sick card. We got a Goldeen. Oh, okay, that's pretty sick. We got a Groudon Hollow. I know I'm a nerd. It's okay. I guess there's only one more thing left to do. Get ready for bed. inta kadib meeshaan siixanay ayaan diyaarsaday markana waynu jiifnaa saaxiibayaal heerkulku halkan wuxuu marayaa 12 digrii oo dhaxan weeye sanka iyo gacmuhu aad bay baraf yihiin oo ay xanuunayaan maanta waxay ahayd maalintii ugu dheerayd noloshayda hadafkan xaqiijinayay ee meeshaan u imidna waxay ahayd inaan seexdo meesha ugu dhow ee xadka North Korea si aan u arki karo North Korea balse ilaa imka si fiican uma inaan arag North Korea waxaan rajaynayaa inaan beritoole markay qorraxdu soo baxdo si fiican u arki doono idinkuna aad la daawan doontaan saaxiibayaal markan waan iska seexan doonaa waxaan isku dayaa inaan seexdo berri baynaan is arki doonaa saaxiibayaal saaxiibayaal waxbaan yaro maqlay markan wasaqda habeenimo aad bay baraf u tahay saaxiibayaal mana seexan karay laimka saaxiibayaal markan waa 6 iyo 6:30 subaxnimo qorraxdu weli ma soo bixin saaxiibayaal taasi waa North Korea u fiirsa bal halka waa iyadii saaxiibayaal waa North Korea halka ka arkaynaa halka waxay nooga muuqdaa waa meel military degan yahay We did it. Oh my gosh. kaasina waa xadkii markan dib baan u degayaa saaxiibayaal buurta waan iskaga degayaa laakiin markii ugu dambeysay saaxiibayaal waan fadhiistay si aan meeshan markii ugu dambeysay si fiican uga sii bogto on viewgan u eego alaabtaydii markaan xidhay aan dib u eegayna waxaan dareemay inaan ugu dambayn wax ku guulaystay oon wax soo qabtay ugu dambayn haddaba ilaa halka haddii aad soo gaadhay saaxiibayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad like ta saartaan ugu horreyn muuqaalka sidoo kalena subscribe haddii aanad hore u saarin saaxiibayaal noo saara subscribe tana insha Allah wayno muuqaalada dambe aad baad mahadsantihiin